xilliga maanta ah oo la isu soo guuray oo abaartu ka jidho oo biyo la'aantu ka jidho oo baad la'aantu ka jidho ceelkaas baa wuxuu u dhaamin jiray ilaa 20,000 oo qoys ama booyad ha ahaato ama xoolaha ha ahaato ama dad ha ahaato ceelkii bamkii baa ka jabay bamkaas wuxuu 11 buu ahaa lambarkiisu ahaa garaas hoos baa la yiraahdaa waana daba dhuub bamkii kale oo dhan waa wada gali waayeen hadda xilligan la joogo waxaa la geliyay bam 7 ah farqiga u dhaxeeya waad aragtaan 11 garaas hoos ah iyo 7 mid ah farqiga u dhaxeeya waad garanaysaan wuxuu hadda xamili waayay oo baahidii laba laabantay xoolihii iyo dadkii iyo xoolihii banaanka loogu qaaday booyadihii waa anfici waayay galabta aanu dhex taagannahay ceelka godob jiraan waxaad u jeedaan inta baabuur taagan oo biyo la'aan u taagan oo bamkii uu xamili waayay biyuhu keeni jiray kala barobar buu keenayaa iyo wax ka sii yar sidaas cilada ugu badan tahay ilaahay waxaanu ka codsanaynaa in ilaahay raxmada siiyo nadeeqda aan ku kala qabowno oo musliin iyo ku kala deeqda oo muslimka u tuugroon qodobka labaad oo kale caalamka waxaanu ka codsanaynaa iyo wixii muslimiina bamkaas meesha laga heli karo iyo cidii raadin ka dhah iyo cidii kharash ku raadin ka dhah cidii waji ku raadin ka dhah si degdeg in loola soo gaaro ceelka godob jiraan maanta baahida ka jidha iyo oonka ka jidha caalamku dhan waa og yahay anagoo dadkii joogay